waxay u dagaalantay sidii ay wax uga bedeli lahayd shuruucda iyo qaynuunka u yaalla ciidamada cirka ee dalka Mareykanka. Haddaba, maxaad ka og tahay oo aad kala socotaa gabadhii ugu horreysay ee asturan ee ka mid noqota ciidamada cirka ee Mareykanka? Si aad u ogaato faahfaahinna u hesho, waxaanu kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto page-kan. Misa Usa, muxajibaddii ugu horreysay ee ku abtirsata jinsiyad Carabeed haysatana diinta Islaamka, waa gabar u halgantay dagaal adagna u gashay sidii ay u xijaabnaan lahayd oo ay u asturnaan lahayd iyada oo wadata shaqo maalmeedkeeda caadiga. Asalkeedu waa Lebanon, qoyskeeda iyo iyaduna waxa ay ku wada nool yihiin gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. waana halka ay ka keentay in ay ku dhiirato inay ka mid noqoto ciidamada cirka ee dalka Mareykanka. Qoyskeeda ayaa gacan ka siiyay sidii ay u baran lahayd isla mar ahaantaasna ay u geli lahayd waxbarashada heerka sare ee ciidamada cirka ee dalka Mareykanka. waxa ay uga mahadcelisay qoyskeeda sidii ay gacanta uga soo siiyeen isla mar ahaantaasna ugu dhiirigeliyeen inay ku biirto ciidamada cirka ee Mareykanka. toddobaadkan ayay ahayd markii ay hal mar magaceeda iyo muuqaalkeedu ay qabsadeen saxaafadda gudaha ee Mareykanka iyo kuwa caalamka. gabadhan oo si adag ugu halgantay wax ka beddelka sharciga muujinta astaamaha diiniga, kaas oo awal mamnuucayay in askariga ku jira ciidamada cirka ee Mareykanka, gaar ahaan haweenka, in aysan isticmaali karin xijaab ama indho shareer. waxaa horay arrintaasi u mamnuucay ama mamnuucayay sharciga ku aadan muujinta astaamaha diiniga. Misa Usa ayaa tusaale cad u noqotay in gabdho badan oo haysta diinta Islaamka kuna nool dalka Mareykanka oo ay dhibaato ka haysatay in ay is-asturaan maadaama qawaaniinta iyo shuruucda u yaalla ay yihiin kuwo ka hor imaanayay ku dhaqanka diinta Islaamka. haddii ay u baahdaanna ay wax ka beddeli karaan shuruucdaas iyo qawaaniintaas. siyaasadaha diimaha ayaa u eg in dalka Mareykanka uu aad u furfuray tobannaankii sano ee la soo dhaafay, maadaama ay muslimiin fara badan ay ku biirayeen dhinacyada xirfadaha kala duwan. ciidamada cirka ee Mareykanka haatan waxaa ku jira gabdho aad u fara badan oo muslimiin ah. uma aysan isticmaali jirin xijaabka, mana aysan hagoogan jirin. Mareykanka ayaa ku eedayn jiray waddamada bariga dhexe in siyaasadda ku aadan diimaha kale ay ku adkaayeen, waxaana haatan soo baxaysa Mareykanka qudhiisa in uusan u oggolayn in lagu muujiyo laguna dhaqmo calaamadaha diimaha goobaha shaqada. waana tan keentay in gabdho fara badan oo muslimiin ah ay ka caaganaadaan oo aysan ku biirin shaqooyin fara badan.